السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. soo dhawaada asxaabta qaaliga baaraka allahu fiikum. sidee ayaanu xifdin karaa qur-aanka kariimka ah 2026 fiidiyogan insha allahu tacaala waxaynu kaga warrami doonaa afar qodob oo kala ah: maxaan helayaa haddii aan xifdiyo qur-aanka kariimka ah? maxaa lagaaga baahan yahay intaanad bilaabin xifdiga qur-aanka kariimka ah? maxaa kaa hor joogsan kara xifdiga qur-aanka kariimka ah? iyo ugu dambayn, sidee ayaan uga faa'iidaysan karaa aaladan casriga ah xifdiga qur-aanka kariimka ah? insha allahu tacaala qodobadaasi oo faahfaahsan ayaynu fiidiyogan kaga warrami doonaa. soo dhawaada baaraka allahu fiikum. صنوف الزهر والثمر صدى المحراب القرآن غيرني qodobka ونبهني koowaad uu helayo qofka xaafidul qur'aanka waa inuu noqdo ehelka ilaahay iyo addoommadiisa u khaaska ah. addoommada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isu nisbeeyey iyo addoommadiisa markaasi gaarka u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala. xadiiska warinaya anas binu malik ee uu soo saaray ibnu maajah, axmed iyo nisaa'i ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: inna lilaahi ahaaliina min annaas, ilaahay waxa uu leeyahay ehel dadka ka mid ah. qaaluu yaa rasuula allahi man hum? saxaabada ayaa waxay ku yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow waa aya kuwaasi? qaala markaasaa rasuulku waxa uu yidhi: hum ahlu lqur'aani ahlullahi wa khaasatuh, waa dadka ehlu qur'aanka ah, kuwaasi waa ehelkii ilaahay iyo addoommadiisa markaasi u khaaska ah. qiimaha intaa la eg ayuu helayaa markaasi qofka qur-aanka kariimka xifdiya, inuu noqdo ehelka ilaahay iyo addoommadiisa u khaaska ah. qofka qur-aanka xifdiya jannada waxa uu ka gelayaa darajaadka ugu sarsareeya. xadiiska warinaya cabdullaahi binu cumar ee uu soo saaray abu daa'uud, tirmidi iyo nisaa'i ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: yuqaalu lisaaxibi alqur'aani iqra' warqa warattil kama kunta turattilu fi ddunyaa faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha. waxaa lagu odhanayaa qofka markaasi qur'aanka xifdiya ee saaxibulqur'aanka, waxaa lagu odhanayaa iqra' qur'aanka akhri, warqa kor markaasi jannada darajaadkeeda sare kor u fuul, warattil kala dhigdhig oo tartiili qur'aanka kamaa kunta turattilu fi ddunyaa, sidii aad ahayd markii aad adduunyada joogtay mid u tartiiliya. faina manzilataka, halka aad ka degayso jannada, cinda aakhiri aayatin taqra'uha, waa aayadda u dambaysa ee aad akhrido. marka qofkii xaafidka ahaa ee ehlu qur'aanka ahaa, aakhiro marka la tago ee jannada la galo, darajaadka la korayo waxaa lagu odhanayaa qur'aanka akhri oo tartiili oo kor, aayadda u dambaysa aad akhrido halkaad ku joojiso, halkaasi ayaad markaasi jannada ka degaysaa. waxa uu yidhi ibnu xajar alhaythami baa wuxuu yidhi: alkhabaru almadkuuru khaasun biman yaxfaduhu can dahri alqalb laa biman yaqra'u bilmusxaf. waxa uu yidhi warkaa la soo sheegay waxa uu khaas u yahay qofka qur'aanka kariimka xifdisan, maaha buu yidhi qofka ka akhrinaya musxafka maaha. markaa qof waliba intii uu qur'aanka xifdisanaa ayuu markaasi kor u korayaa. markaa qofkii xaafidka ahaa ee soddonka qur'aanka xifdisanaa, jannada waxa uu ka gelay darajaadka halka ugu sarreysa. qofka xaafidul qur'aanka waa la horumariyaa adduunye iyo aakhiro. waxaynu ka warrami doonaa 3 meelood oo qofka markaasi xaafidul qur'aanka mar walba la horumariyo. waxa u horeysa markaasi salaada iyo imaamnimada. mar walba waxaa la horumarinayaa qofka xaafidka ah. xadiiska uu warinayo abi mascuud cuqbata bnu caamir albadriyi alansaariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam: yaumu lqowma aqra'uhum likitaabi illahi fain kanuu fi lqiraa'ati sawaءun faaclamuhum bisunna fain kanuu fi sunnati sawaءun faaqdamuhum hijra fain kanuu fi lhijrati sawaءun faaqdamuhum sinan ila aakhiri alxadiisi rawaahu lmuslim. xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: dadka waxaa imaam u noqonaya oo salaada tujinaya kooda kitaabka ilaahay ugu yaqaana ee ugu akhrinta wanaagsan. haddii markaasi ay qiraa'adii qur'aanka kariimka ka siman yihiinna, kooda markaasi sunnada u yaqaana ayaa imaamnimada la horreysiinayaa. hadday sunnadii ka siman yihiin, kooda markaasi hijrada soo horreeyey. haddii ay hijradii ka siman yihiinna, kooda markaasi da ahaan weyn ayaa la horumarinayaa. marka qofka xaafidul qur'aanka ah waxaa la horumariyaa imaamnimada inuu dadka salaada tujiyo. sidoo kale waxaa la horumariyaa markaasi shuurada in lala tashado, sidoo kalena ra'yigiisa la qaato. kaana alquraa'u asxaaba majlisi cumara, waxay ahaayeen asxaabta majliskii cumar.
ama ciddii majliska cumar fadhiisan jirtay waxay ahaayeen quraa bay ahaayeen ee uu markaasi la shuuraysan jiray ee uu markaa la tashan jiray. sidoo kale waxaa la horumariyaa qofka xaafidulqur'aanka ah qabriga iyo iilka marka la dhigayo isaga ayaa la horumarinayaa. xadiiska uu warinaya jaabir radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid kulmiya markaasi 2 nin oo ka mid ah shuhadadii markaasi dagaalka uxud mara quraata ayuu markaasi ku kulmin jiray. uma yaquulu kadibna waxa uu odhan jiray ayuhum akharu akhdan lilqur'aan, keebaa markaasi ugu badan ee qur'aanka qaatay, yacni 2dan saxaabi ama 2dan shahiid keebaa qur'aan badan xifdisan. faidaa ushiira lahu ilaa axadihimaa, haddii loo tilmaamo markaa midkood waxa uu markaasi uu horumarin jiray markaasi iilka ayuu u horumarin jiray. marka qofka xaafidulqur'aanka ah waa laga horumarinaya xagga iilka marka la dhigayo qofka kale. marka rasuulkuna saxaabada waxa uu iilka u kala horreysiinayey sida ay qur'aanka kariimka ah u kala xifdisan yihiin. maalinka qiyaame qur'aanku wuu u shafeeco qaadayaa qofka markaasi qur'aanka xifdiya ee ku dhaqma. maalinka qofku uu ka cararayo cidda ugu dhow adduunyada, allah subxaanahu watacaala isagoo ka waramaya ayaa wuxuu yidhi yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yuqniih. maalinka qiyaame waa maalin uu qofku ka cararayo walaalkii, wa ummihi wa abiih, hooyadii iyo aabihii ayuu ka cararayaa, wa saaxibatihi wa baniih, xaaskiisa iyo caruurtiisa ayuu ka cararayaa, likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yuqniih. qof walba maalinka waxaa mashquuliyey arrinkiisa. maalinka ay dhibtu intaa la eg tahay ayaa uu qur'aanku u shafeeco qaadayaa oo markaasi uu u doodayaa qofkii la saaxiibay ee ku dhaqmay adduunyada. xadiiska uu warinayo abi umaamata radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu iqra'u lqur'aana fainahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabihi rawaahu muslim. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan ka maqlay isagoo le buu yidhi qur'aanka akhriya, maxaa yeelay waxa uu imanayaa maalinka qiyaame isagoo u doodaya asxaabtiisii. marka qiimaha iyo fadliga uu leeyahay qofka qur'aanka kariimka xifdiya iyo waxa uu helaya maaha wax lasoo koobi karo, laakiin intaasi ayaynu markaasi ka soo qaadanay. القرآن غيرني ونبهني qodobka koowaadi waa وأحياني inaad niyadaada ka dhigto ilaahay dartii, inaad qur'aanka markaas oo xifdinayso ilaahay dartii. xadiiska uu warinaya cumar bin khadaab ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa. acmaasha oo dhani waa niyada, qof walibana waxa uu leeyahay waxa uu niyooday. marka niyada xifdiga qur'aanka kariimka markaad xifdinayso waa inaad u niyootaa inaad u xifdinayso ilaahay dartii iyo inaad ilaahay ugu dhowaato. waa inay niyadaadu tahay inaad qur'aanka kariimka u xifdinayso ilaahay dartii, raalli ahaanshihiisa iyo in ilaahay subxaanahu watacaala aakhiro uu kugu abaalmariyo. waa inaanay niyadaada waxyaabo kale soo gelin. qodobka labaad ee lagaaga baahan yahay waxa weeyaan inaad ducaysato o aad ilaahay subxaanahu watacaala aad barido, waayo qofka qur'aanka kariimka xifdinayo waa ilaahay subxaanahu watacaala towfiiqdiisa iyo waafajintiisa iyo doorashada ilaahay subxaanahu watacaala. waxaad arkaysaa qof uu qur'aanku u fudud yahay, u jilicsan yahay, xifdigiisu uu xoog badan yahay, haddana aan loogu taag helaynin inuu qur'aanka kariimka xifdiyo oo markaasi uu qur'aanka dhammaystiro. waxaad arkaysaa qof uu qur'aanku ku adag yahay, daal badan ka soo maraya, dhibaato badan ka soo maray, haddana ugu dambeyn ku guulaystay inuu markaasi noqdo xaafid oo qur'aanka kariimka markaasi xifdisan. marka waa towfiiq ilaahay iyo waafajintiisa. ducada ugu fiicanna waa inaad ducadani ku ducaysato allahuma ajcal alqur'aana alcaظiima rabiica qalbii wanuura sadrii wajalaa'a hamii wadahaaba xusnii warzuqnii tilaawatahu cala alwajhi aladii yurdiika canii wajcalhu nuuran fii qabrii washafiican lii yowma alqiyaamah warzuqnii xifdahu waacinnii calaa dalika. inaad ducadaasi intaad qaybto markaasi aad mar walba aad ilaahay subxaanahu watacaala aad ku barido oo aad ku ducaysato. qodobka saddexaad waa inaad hesho macallin mutqin ah oo qur'aanka kariimkaa sugay, sidoo kale kugu dadaala sidii aad qur'aanka kariimka aad u xifdin lahayd. qodobka afaraad inaad yeelato meel aad qur'aanka kariimka ku xifdido iyo markaasi wakhti aad qur'aanka kariimka aad xifdido. sidaynu wada ogsoonnahay xifdiga qur'aanka kariimka ah waxa uu u baahan yahay inaad wakhti geliso
oo aad markaasi waqti u samayso xifdiga qur'aanka kariimka ah. Waqtigaasina waa inuu kaa go-an yahay. waxaan odhan karaa waqtiyada ugu fiican waxaa ka mid ah maqrib iyo cishaay inta u dhaxaysa. qofku haddaanu hawl ama camal aanu haynin, waqtiga inuu qur'aanka kariimka u jaro waa waqti uu qofku qur'aanka kariimka xifdin karo. waqtiyada ugu fiican ee qur'aanka la xifdiyo iyana waxaa ka mid ah waqtiga markaasi salaada subax ka hor iyo markaasi kadib iyo salaada casar kadib. waqtiyadaasi waxay ka mid tahay waqtiyada maskaxda qofku ay fareeshka tahay oo uu qur'aanka kariimka xifdin karo. sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay halkii aad qur'aanka ku xifdin lahayd, haddii ay guriga tahay inaad boos samaysato markaasi, ama qol gaara aad samaysato, ama qolka meel ka mida aad samaysato oo aad halkaasi ugu tala gasho inaad qur'aanka kariimka ku xifdido oo aad ku diyaariso, ama casharka aad ku qaybto, ama muraajacadii lagaa rabay aad ku diyaariso, ama subciska aad ku qaybto. marka gurigana waa inaad boos ku leedahay. qodobka shanaadi waa inaad doorato markaasi musxaf khaas ah oo aad qur'aanka kariimka ku xifdido. musxafkaasi waa inaad sidataa markaad macalinkaaga uga baxayso iyo marka aad qur'aanka diyaarinaysaba, ee wixii mulaaxadaada ee macalinku kugu qoray inaad dib ugu muraajacayso. marka qofka xaafidul qur'aanka waxaa looga baahan yahay inuu musxaf sito u gaara oo markaasi uu qur'aanka kariimka ku xifdiyo, ee inaanu maalinba musxaf gooniya oo midab kala ah ama midabadiisu ay kala duwan yihiin ama laymankiisu ay kala duwan yihiin inaanu qaadanin, laakiin inaad hal musxaf qaadato oo musxafkaasi aad ku dadaasho inaad qur'aanka kariimka aad ku dhammayso. بإحساسي وآذاني waxyaabaha kaa horjeegsan kara xifdiga qur'aanka kariimka waxaynu u qaybin doonaa laba qaybood. qaybta koowaad oo ah markaasi dhaqanka iyo qalbigaaga, qaybta labaad oo ah markaasi manhajka. haddaba waxyaabaha xifdiga qur'aanka kaa horjoogsan kara waxaa ka mid ah dunuubta iyo macaasida. qofku inuu markaasi dunuub iyo macaasi uu ku dhaco waxay ka mid tahay waxyaabaha ka horjoogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka ah. waayo xifdiga qur'aanka kariimka ah qalbiga wuxuu gelinayaa iftiin iyo nuur. dunuubta iyo macaasiduna qalbiga waxay ku ridayaan markaasi madow, dhibic madow ayay ku noqonayaan. marka iftiin iyo markaasi madow meel kuma wada kulmi karaan. sidaa awgeed ayaa dunuubta iyo macaasidu ay ka mid tahay waxyaabaha qofka ka horjoogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka ah. sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha qofka ka horjoogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka ah adduunyada oo markaasi qofku jeclaado oo qalbigiisa markaasi ku weynaata. qofka inay adduunyada gacanta uu ku hayo ma aha ceeb, laakiin waxaa ceeba oo khatar ah qofka inay adduunyada qalbigiisa ay gasho oo ay markaasi ku weynaato oo hamigiisa oo dhani uu noqdo markaasi adduunyo. iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka ka horjoogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka ah. sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha qofka xifdiga qur'aanka kariimka ka horjoogsanaya ikhlaaskiisa oo markaasi yaraada, niyadiisa oo ay waxyaabo kale soo galaan. iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka ka horjoogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka ah. sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha qofka ka horjoogsanaya xifdiga qur'aanka kariimka ah qofku inuu ku dhaco markaasi khaflad iyo markaasi mooganaan oo uu ilaawo qabriga, aakhiro iyo qiyaamaha iyo waxyaabaha dambeeya oo dhan, oo markaasi qofku uu khaflad ku dhaco. iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha ka horjoogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka ah. sidoo kale manhajka waxyaabaha qofka xifdiga ka horjoogsan kara waxaa ka mid ah muraajacadiisa oo yaraata iyo ku celcelintiisa oo yaraata. qofku isagoo qur'aankii uu soo dhaafay aan dib u muraajacaynin, sidoo kale qur'aankan uu xifdinayana aan markaasi ku celcelin, waxay ka mid tahay waxyaabaha ka horjoogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka ah. waayo haddaanu qur'aankii ku celcelin waxaa ku soo hagaagaya markaasi waqtigii uu macalinku ka rabay casharka qur'aankii oo ku adag oo uu markaasi dareemayo culays fara badan. marka markii uu ku adkaado waxa uu noqonayaa inuu qur'aankii markaasi ka hadho. marka ku celcelintiisa oo yaraata iyo muraajacadiisa qur'aankii oo uu soo dhaafay uu dib u muraajaceeyo oo yaraada waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka ka horjoogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka ah. waxaa ka mid a waxyaabaha qofka ka horjoogsan kara inuu qur'aankii markaasi si degdega u xifdiyo. iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka ka horjoogsada, waayo mar walo uu qofku degdeg u xifdiyaba si yaroo fudud ayuu ku ilaabaa. marka qofku markuu degdego ee uu qur'aan fara badan uu ka baxo, hadha wuxuu is arkayaa isagoo qur'aankii ilaabay oo haddana cashar cusub ay ku noqotay. marka iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka ka horjoogsan kara inuu qur'aanka xifdiyo. sidoo kale waxaa ka mid ah xamaasad xoog badan oo uu qofku leeyahay kadibna haddana uu ka dhacayo oo uu dib u fadhiisanayo.
tusaale ahaan inuu doono maalinka u horeeyaba inuu xifdiyo suuratulbaqara oo uu u fadhiisto oo uu juhdi fara badan geliyo, kadib haddana uu dib uga dhaco oo 5 cisho ama 6 cisho aanu qur'aankii soo qaadin. iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka ka hor joogsada inuu leeyahay xamaasad xoog badan bilowga, waxaanu markaasi wadi karaynin oo aanu joogtayn karayn inuu dusha iska saaro, kadib 2-3 cisho markuu wado haddana uu dib uga dhaco oo uu markaasi uu hoos maro. waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka ka hor joogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka ah. qofku isagoon sugin markaasi tajwiidka iyo makhaarijta xuruufta, iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha ka hor joogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka. qofku inuu nudqigiisa saxo oo markaasi uu tajwiidkiisa saxo oo meesha lagu qabsado uu markaasi dib u saxo, laakiin haddaanu intaasi xoogga saarin, iyana waxay ka mid noqon kartaa waxyaabaha qofka xifdiga qur'aanka kariimka ah ka hor joogsan kara. sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha qofka xifdiga qur'aanka ka hor joogsan kara inuu markaasi macallin aan mutqin ahayn uu qur'aanka u dhigo oo aan qur'aanka markaasi xifdisanayn ama qur'aankiisu aanu sugnayn. iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha xifdiga qur'aanka kariimka ka hor joogsan kara, waayo waxaa la yidhaha faaqidu shayin laa yuctiihi. qofkani haddaanu qur'aanka xifdisanayn oo aanu soddonka qur'aanka aanu xifdin, way adag tahay inuu markaasi ku xifdisiiyo. marka qofku haddaanu helin markaasi macallin mutqin ah, waxay ka mid tahay waxyaabaha ka hor joogsan kara xifdiga qur'aanka kariimka ah. بإحساسي وآذاني هو waqtigan aynu joogno waa waqti wax walba uu ilaahay subxaanahu wa tacaala bashariyadda ama bini aadanka uu u fududeeyey. marka aaladahaasi casriga ah, qofku sidee ayuu uga faa'iidaysan karaa xifdiga qur'aanka kariimka ah? waxa uu uga faa'iidaysan karaa siyaabo fara badan oo markaasi aan dadkii hore aanay heli jirin. waxaa ka mid ah applicationkan la yidhaahdo tartiil oo markaasi qur'aanka kaa dhegaysanaya. awal qofku waxa uu u baahan jiray inuu qof yidhaahdo markaasi casharkii bal iga dhegayso intaanu macallinka u tegin oo uu kasii tijaabiyo. haddaba adigoo moobilkaaga haysta ayaa aad qur'aankii moobilkaaga ama applicationkaasi ayaa qur'aanka kaa dhegaysanaya. tusaale ahaan haddii aad hal beyj ka baxaysay, halkii beyj aad xifdiday aad u baahato cid kaa tijaabisa oo markaasi kaasii dhegaysata, applicationkaasi ayaad isticmaalaysaa oo kaa dhegaysanaya. marka waxay ka mid tahay aaladda casriga ah ee ay tahay markaasi qofku inuu xifdiga qur'aanka kariimka ah uu uga faa'iidaysto. sidoo kale waxaa jira applicationo fara badan oo ay ka mid yihiin applicationka la yidhaahdo aaya oo isaguna markaasi kuugu soo celcelinaya aayaddii inta aad doonto. tusaale ahaan boggaasi ayaa waxaad odhanaysaa 20 jeer ama 30 jeer iigu soo celceli, kadibna waa uu kuugu soo celcelinayaa. marka applicationadaasi waxay kaa caawinayaan inaad qur'aanka kariimka aad xifdido oo aad si sahlan aan markaasi ku xifdido. halkii aad u baahan lahayd inuu qof kaa dhegaysto, barnaamijkan ayaa kaa dhegaysanaya. halkii aad u baahan lahayd inuu qof kuu mariyo, barnaamijkan ayaa kuu marinaya. marka aaladda casriga ana waynu uga faa'iidaysan karnaa xifdiga qur'aanka kariimka ah. halkaas ayaynu kusoo koobaynaa. allah inaga dhigo kuwa markaasi qur'aanka kariimka ah xifdiya ee ku dhaqma ee uu maalinka qiyaame u shafeeco qaado. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.